shalayto ayay ahayd markii uu maayirka magaaladani Boorama Mudane Suleymaan Xasan Xaddi uu xaqiijiyay inuu furmay kala fadhigii golaha deegaanka ee degmadani Boorama. Kala fadhigu waa waqtigiisii uu ku beegan yahay oo qabsoomaya imika ayaa la soo diyaar garoobaya insha Allah haddaanu qabanaynaa qodobadii iyo ajandihii iyo wixii aanu ka hadlaynaa waa noo diyaar insha Allah si fiican buu noogu qabsoomaya. qodobada aad ka hadlaysaan gudoomiye wax ma nooga sheegi qodobada waxa kulay ajanduhu waxa weeyaan miisaaniyadii baa kamida waxa kamida sidii magaalada loo hagaajin lahaa ilaahi dakhliga kor loo qaadi lahaa dhaqaale la abuuri lahaa qodobo badan baa ayaa kamida gudoomiye kulankaasi aad u muhiim yahay ma la oran karay maadaama miisaaniyadu kala habsaantay oo inta badan la sheegay inay habsaantay miisaaniyadu runtii dib u dhacday safar anagu aan galay iyo adigu suwaa iyo isfaham darrada xildhibaanada gudahooda laftigeeda waa iska jireen laakiin imika waa iska diyaar waana dhameystireen insha Allah balse uu shaqeyn waayay taas oo saaka dib u furay barasaabka gobolka Awdal Maxamuud Salebaan Cali Ramaax oo uu sheegay in maanta laga bilaabo uu furan yahay kala fadhigii golaha deegaanka ee Boorama joogna ay ka yihiin mas'uuliyiinta wasaaradda iyo anigoo ah gudoomiye gobolkuba waxaan filayaa hawsheenu inay wada shaqayn fiican iyo sidii xil gudashadii loo soo ceshan lahaa inay aad iyo aad ay ugu dadaashaan tallaabadii ugu horreysana ay tantay waana idin mahadnaqaya ilaahay baa mahadleh assalaamu calaykum kastaba ahaatee shalayto markii uu furmayay kala fadhigu ayaa waxaa goobta ka maqnaa barasaabka gobolka Awdal halka saaka mar labaad markii dib loo furay kala fadhigaasi uusan goobjoog ahayn maayirka magaaladani Boorama oo ah xubinta ugu sareysa guud ahaanba golaha deegaanka ee Boorama taas oo ku xaqiijinaysa khilaafka xoogan ee dulha haabaya guud ahaanba maamulka heer gobol iyo heer degmo waa Jaamac Xuseen Jaamac Dude Somaliland Space Channel Boorama.